الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. ثم أما بعد عباد الله، خطبتنا اليوم تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب. ولا ليال waxa khudbadeena maanta ay ku saabsan tahay xaaraantinimeynta la xaaraantinimeeyey heesaha iyo muusikada iyo kamanada loo tumayo. waayo maanta waxa aynu guryaheennii iyo guryihii ilaahayba ka fadhiilaanahay heesaha iyo kamanada codka dhaadheer ee meel walba maraya. ruuxa muslimka ana waxa waajib ku ah inuu shay walba xukunkiisa ogaado, xalaal ahaan iyo xaaraan labada midka uu yahay, dabadeed uu hoggaansamo xukumka rabbi subxaanahu wa tacaala. waayo macnaha muslimnimada iyo mu'minku waa hoggaansame, waa ruux ilaahay u hoggaansamay oo amarkiisa qaatay nahyigiisana ka tegey. xaqiiqada islaamku waa taa. alislaam huwa alistislaamu lilahi biاltawxiid walinqiyaadu lahu biاlطaaca waalkhuluusu min ashirki waalbidaci wa ahlihima. islaamka marka la qeexayo macnihiisa iyo madmuunka uu ka turjumayo waa ilaahay in laysku dhiibo tawxiidka loogu hoggaansamo, waa in daacaadka iyo cibaadaadkana loogu hoggaansamo rabbi oo wuxuu ina faray la yeelo, wuxuu inoo diidayna laga tago. waa in laga beri noqdo, bannaanka looga baxo shirkiyaadka iyo bidaca iyo ehelkoodaba. walaalayaal, haddaba maanta waxaa khudbaddeenna maanta aynu isdul taagi doonaa bal heesaha ina halakeeyee dhibaatadoodu ina caam yeeshay iyo muusigaa maanta hadh iyo habeenba baxaya ee aynu ku waaberiisanayno kuna gabal dhacsanayno, bal xukumku islaamku siiyey waa maxay? ma xalaal baa mise waa xaaraan? walaalayaal, ugu horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala nicam tiro badan buu inagu galladaystay, nicamtaasoo aan la tirin karayn lana soo koobi karin. oo rabbi waxau ihi subxaanah: wain tacudduu nicmata allahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar. haddii aad nicmooyinka ilaahay tirisaan ama aad doontaan inaad tiro ugu dhaqaaqdaan ma soo koobi karaysaan.
insaanku waxa alla uu ku tilmaamay inuu yahay la daluumun kafaar, dulmi badane gaalnimo badan ciyaadan billaah. waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah wamaa bikum min nicmatin fa min allah, wax alla waxa nicmo idinku sugan tu diineed iyo tu duunyaba ilaahay xaggiisay ka ahaatay ee xooggiinna iyo xeeladiinna ma aha. walaalayaal, inna min acdami الnicam nicmatu الsamci wاlbasari wاlfu'aadi wasaa'iri اljawaarix. haddaba nicmooyinka rabbi inagu manaystay kuwooda ugu muhiimsan ee ugu mudan waxaa ka mid ah nicmada maqalka iyo aragga iyo qalbiga iyo xubnaha kale. waa nicamun min allahi caza wajal. wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa wajacala lakum الsamca wاlbasra wاlfu'aad qaliila ma tashkuruun. wajacala lakum الsamca wاlbasra wاlfu'aad qaliila ma wاlaf'idata qaliila ma tashkuruun. ilaahay waxau ihi subxaanah wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa. ilaahay waxa uu idinka soo saaray uurkii hooyooyinkiin idinkoon waxba kala garanayn, oon cilmi iyo ogaal iyo garasho midna aan lahayn. wajacala lakum الsamca wاlbasra wاlaf'ida. dabeed alla wuxuu idin yeelay maqalka iyo aragga iyo quluubta ayaa alla idin yeelay. ilaahay waxau ihi qaliila maa tashkuruun, waxa aada u yar oo yar inta aada ilaahay mahadinasaan. ilaahay waxa uu aayaddan ku tilmaamay in nin walba markii uurka hooyadii uu ka soo baxay dee cilmi aanu lahayn, oo nin cilmi la soo dhashay dee ma jiro. dabeed ilaahay waxa uu sheegay adawaatul-cilmi, adawaadka iyo asbaabta iyo waxyaabihii cilmiga aynu ku xasilinaynay ilaahay inuu inagu galladaystay, oo ay ugu horeeyaan maqalkiiyo aragga iyo quluubta. waayo waxyaabaha cilmiga lagu weeleeye ugu weyn dee waxaa ka mid ah araggii iyo maqalkii iyo qalbigii aada wax ku qaadaysay. dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay inta aynu ilaahay u mahadnaqaynaa in yar inay tahay qaliila maa tashkuruun. mahadnaqa maqalka iyo aragga iyo quluubtuna waxa ay tahay in loo adeegsaday ilaahay wax raalli gelinayo oon ka cadhaysiinayn, oo araggaaga aada ku aragto oo keliya waxa alla uu raalli ka yahay, maqalkaaga aada ku dhegaysato oo keliya ilaahay waxa uu raalli ka yahay, qalbigaagana aada ku qaado ilaahay waxa uu raalli ka yahay subxaanah. haadaa huwa shukraanu nicam. nicamtaa maqalka iyo arag iyo quluubta mahadnaqoodu waa in loo adeegsada ilaahay taacadiisa oon macsiyo loo adeegsan. walaalayaal, haadihi الnicam sawfa tus'alu canha yowma alqiyaamah. qiyaamaha waa laysweydiin doonaa oo laysaga tegi maayo. ina asamca wاlbasra wاlfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula. ilaahay waxau ihi subxaanah maqalka iyo aragga iyo qalbiga xubnahaasoo dhan waa laysweydiin doonaa wixii lagu sameeyo laysaga tegi maayo. humma latus'alunna yowmaidin can الnaciim. walle maalinta qiyaame waa laysweydiin doonaa nicmooyinkii laynagu galladaystay. walaalayaal, haadihi الnicam nicmooyinka alla uu ina siiyey ee nicmatu ljawaarix waa inaynu xubnaha u adeegsanaa ilaahay wixii raalli gelinaya. walaalayaal, inna min kufraani الnicam waxaa ka mid ah nicmooyinka alle laga gaaloobaye la dafiraye la diidayo nicmadii maqalka in lagu dhegaysto hees iyo muusika iyo macaasi, nicmadii aragga in lagu daawado lagu eego xaaraan iyo macaasi. waa min kufraani الnicam. nabiguna salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu tilmaamay in zinadu ay laba nooc tahay, zinada yar iyo zinada weyn. wadiiqada yari waddada weyn bay kugu ridaa. faaxishada iyo foolxumada weyni ma dhacayso haddaan tan yar la sii marin. zinada yar ee ta weyn sababta u ihi waa zina aljawaarix, waa in xubnaha laga zinaysto.
nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxau yihi kama fi صaxiixayn min xadiidi abi hurayrة kutiba calى bni aadama nasiibhu min الzina mudrikun dalika laa maxaala falcaynaani zinaahuma الnadr wاludunaani zinaahuma اlistimaac wاllisaanu zinaahu اlkalaam wاlyadu zinaaha اlbaطshu wاlrijlu zinaaha اlkhuطaa wاlfamu zinaahu اlqublu wاlqalbu yahwى wayatamanaa wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibuh. nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi ina aadam waxaa loo qoray nasiibka iyo qeybta uu zinada ku leeyahay oo wuu ka qaadayaa mana seegasa shaki la'aan. waxa uu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam labada indhood zinadoodu waa aragga xaaraanta ah in xaaraan lagu daawado lagu eego. labada dhagood zinadoodu waa maqalka xaaraanta ah xaaraan in lagu dhegaysto sida heesaha iyo muusikada iyo waxa la midka ah. gacanta zinadeedu waa in xaaraan lagu qabto ama lagu taabto. lugaha zinadoodu waa in xaaraan loogu socdo. afka zinadiisu waa in dhunkasho xaaraana lagu dhunkado. qof ajnebi oo kaa xaaraana inaad ku dhunkato waa afkii ood ka zinaysatay. nebigu waxau ihi qalbiguna arrintaa wuu doonayaa waanu tamaniyayaa oo waxay indhuhu arkeen dhaguhuna maqleen dee qalbigii waa jecel yahay inuu gaadho ka gun gaadho. xubinta tarankuna arrintaa wuu rumaynayaa ama waa beeninayaa. waxa macnuhu yahay zinadii yarayd eed xubnaha ka soo samaysay dee qalbigii waxa uu jecel yahay arrintaa bal inuu ka gun gaadho. xubintii tarankuna arrintaa xubnihii ay arkeen ama ay dhegaysteen qalbigiina uu damcay ee uu doonayo dee xubintii tarankaa rumaynaysa oo faaxishadii iyo foolxumadii weyneyd baa dhacaysa ciyaadan billaah. ama xubintii taranku waa beenaynaysaa oo zinadii iyo faaxishadii weyneyd ma dhacayso. macnaha xubinta taranku iyadunbaa ama rumaynaysa wixii xubnaha ama beeninaysa. walaalayaal xadiidkaa waxaa ka cad zinada weyn ee ay ka waajibayso xadka in lagu oogo qofka sameeya rag iyo dumarba dee waata xubinta taranku ay kulmaan ee faaxishadii iyo galmadii xaaraantahayd ay dhacdo waa zinada weyn ee xadku uu ka waajibayo. laakiin taa weyne haddaanay dhicin tan xubnaha ka dhacaysaa waa zino yar oo xad aanu ka waajibayn waase dembi iyo macsiyo dee cuquubo iyo cadaab aad ku mudan karto. walaalayaal haddaba alghinaau bariidu zina heesuhu waa biriishka ama waddada loo maro zinada ciyaadan billaah. waa waxyaabaha sahla ee fududeeya. afarta madhab ee a'immada ugu waaweyn ee maalig iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo abu xaniifana way isku raacsan yihiin heesahan iyo miisikadood iyo waxa loo tumo xaaraannimada ay xaaraan ku yihiin shareecada. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إلهي وحور سبحانه ومن الناس dadkii waxa ka mid ah man yashtari lahwa alxadiid kuwa soo iibsanaya warkiisa lagu mashquulo ee lagaga mashquulo ilaahay dikrigiisa iyo taacadiisa liyudilla can sabiili اllahi bigayri cilm si ilaahay jidkiisa uu dadka ugaga lumiyo cilmi la-aan isagoo ku dul sugan wayatakhidahaa huzuwa uu ugana yeesho ilaahay jidkiisa iyo diinta wax lagu dheeldheelo oo jees jees laga dhigto. allah waxa u ihi ulaa'ika lahum cadaabun muhiin kuwaasi waxay leeyihiin cadaab dulleeya ayay leeyihiin. allah waxa u ihi waidaa tutlaa calayhi aayaatuna
kaa heesaha u dhaga nugulee dhegaysanaya kaa wax lagu mashquulo soo iibsanaya ilaahay dikrigiisa iyo daacadana ka durkaya ka noocaas ah marka aayaadka yaga lagu dul akhriyo xaalkiisu waa sidee wallaa mustakbiraa wuu jeedsanayaa isagoo iskibrinaya ayuu dhabarka jeedinayaa oonu dheg jalaqu siinayn kaan lam yasmacahaa sidii nin aan maqal oo kale oo dhegala kaana fii udunayhi waqraa sidii wax labadiisa dhagood culays ku sugan yaho uu dhaga culusyo waxbaba aanu maqlayn ayuu ka jeedsanayaa aayaadka rabbi ilaahay waxa uhi fabashirhu bicadaabin aliim kaa waxaad ugu bushaaraysaa cadaab xanuujiya ciyaada biاllaah walaalayaal haadihi alaaya keligeed baa inoogu filan inaynu ogaano xaaraannimada heesaha iyo muusikada cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu wa ardaah saxaabigii qiimaha badnaa ee yidhi wallaahi maa min aayatin nazalat ilaa wa aclamu ayna nazalat wa fiima nazalat wamataa nazalat cabdillaahi bni mascuud oo ahaa saxaabigii yidhi wallaahi aayad soo degtay ma jirto hadday jirtase waxaan garanayaa goortay soo degtay iyo halkay ku soo degtay iyo waxay ku soo degtay waa kuwii cilmiga iyo qur'aanka ugu aqoonta badnaa ee fahamsanaa waa kuwii xaadiray waxyiga oo qoyan oo soo degayoo daray ah waa kuwii nebi moxamed la saaxiibay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ee safarkiisa iyo nagaanshihiisaba la socdeen meelna kaga faaruqin kagana fogaan waxa u ihi ibn mascuud wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu lahwu lxadiid huwa alghinaa waxa u ihi allaha waxaan ku dhaaranayaa mid xaq lagu caabudaa aanu jirin isaga mooyaane ilaahaasaan ku dhaaranayaaye lahwulxadiidka aayaddan lagu sheegay waa heesaha waa ibnu mascuudka sidaa yidhi sidaasoo kale ayuu yidhi cabdillaahi ibnu cabbaas turjumaanu lqur'aani wa xabru hadihi اlummah turjumaankii qur'aankee nebi moxamed u duceeyey ducadii nebi moxamedna helay ee ahaa xabru hadihi اlummah ummadda nebi moxamed caalimkeedii walaalayaal haadihi alaaya ilaahay waxa uu ku tilmaamay in heesaha iyo lahwulxadiidka la soo iibsanayo ilaahay jidkiisa ay dadka ka luminayaan waana xaqiiqadaynu hayno wakhtigaa aynu dikriga iyo daacada ilaahay beydkiisa ugu kulannay ayaa waddooyinkeenna waxa marayood ku soo arkaysaan heesaha iyo waxa weeyaan gawaadhida samaacaduhu ay saaran yihiin iyagoon jumco iyo salaatoona waruhayn waayo waxay ku mashquuleen lahwulxadiid ilaahay dikrigiisi iyo daacadiisiina waa ka jeesteen walaalayaal aayaddan ilaahay wuxuu ku tilmaamay ninka doortay lahwulxadiid qalbigiisa qur'aanku inaanu qoynayno hoos aanu ugu dhaadhacay waayo laabi laba ula midse waa u door yacni maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfih ruuxna laba qalbi ma leh dee qalbigaagu dhinacunbuu u dhaqaaqayaa laba dhinac uma kala dhaqaaqi karo qalbigii hees iyo muusi laga buuxiyey ilaahay qur'aankiisa waa ka daboolmo qaadi maayo sidaa darteed ayaa alla waxa uu yidhi waidaa tutlaa calayhi aayaatunaa wallaa mustakbiraa kaan lam yasmachha kaana fii udunayhi waqraa qur'aanka waa ka dhaga culus yahay ma weelaynayo waanada qur'aanka arrintaasi ilaahay aayaddaa uu ku tilmaamay waata ibnulqayimna calayhi raxmat ullah nuuniyadiisa uu ku tilmaamay waxa uu yidhi faidaa tacallaqa biاsamaaci asaarahu cabda likuli fulaanati wa fulaanin xubu اlkitaabi wa xubu alxaani اlghinaa fii qalbi cabdin laysa yajtamicaani haqula alkitaabu calayhimu lama ra'w taqyiidahu bisharaa'ici اliimaani wallahwu khafa calayhimu lama ra'w ma fiihi min طarabin wa min alxaanin waxaa ibnulqayim uu yidhi calayhi raxmat ullah ruuxu
marka qalbigiisu uu ku tacalluqee uu qabsado dhegaysiga heesaha iyo miisiga iyo aalaatu lahwi waatarab waxaa marka uu ku tacalluqay qalbigiisu uu qaado waxaasi uu ka dhigayaa ruuxii addoon buu uga dhigayaa hebel iyo heblaayo fanaan hebel iyo fanaanad heblaayo ayaan jecelahay ayuu if iyo aakhiraba ku seegayaa wuxuu addoon u noqonayaa hebel iyo heblaayo ilan qalbigiisii baa cishqi iyo kalgacal wuxuu u galay heesaha iyo kuwaa tumaya waxa uu yihi xubu lkitaabi wa xubu alxaani alghinaa fii qalbi cabdin laysa yajtamicaani jacaylka kitaabka rabbi iyo in la jeclaado heesaha iyo codadkaa waxa weeyaan muusikada labadaa jacayl addoon qalbigii kuma kulmaan mid unbaa ku hadhaya haqula alkitaabu calayhimu lamaa ra'w taqyiidahu bisharaa'ici aliimaani kitaabkii qur-aanka ah wuxuu ugu cuslaaday markay arkeen taqyiidka uu ku dabrayo sharaa'icdii iimaanka iyo xuduuddii sharciga dee kitaabka qur-aankii dabar ayuu kuu samaynayaa aada isaga dabarto xumaanta iyo xaaraanta wallahwu khafa calayhimu lamaa ra'w maa fiihi min tarabin wa min alxaanin laqwigii iyo lahwigii iyo heesihii iyo macaasidiina waa u fududaadeen dee markay arkeen waxa ku jiray ku raaxaysanayaan ee codadka iyo muusikada loo tumayo iyo sida ay dabar la-aan iyo qeyd la-aan waxa weeyaan daw walba ay isaga daaqayaan taasay ku jeclaadeen walaalayaal haadihi alabyaat waxay tilmaamaysaa in ruuxa kitaabka alle jeclaaday hees iyo kaman inaanu u dhowaanay laakiin ruuxa waxa weeyaan heesaha iyo kamanada iyo muusikadu qalbigiisa ay buuxiyeen dee qur-aankii ilaahay meel uma hayo waa ka buuxiyey walaalayaal waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah iyadoo la tilmaamayo codka ibliis dadka uu ku didsado ama uu ku duufsado ilaahay waxa uu yihi wastafziz man istaطacta minhum bisawtik waajlib calayhim bikaylika warajlika washaarikum fi اlamwaali wاlأwlaad wacidhum wama yacidhum الshayطaanu ila guruura allah waxa uu yihi jala jalaaluh wastafziz man istaطacta minhum waxaa lala hadlayaa waa ibliis markii uu ku dhaartay wacadu ku maray ilma nebi aadam inaanu teello u dhiganayn oo geed dheer iyo geed gaabanba uu fuuli doono siduu u hallayn lahaayee halaagga ugu horseedi lahaa markaasaa alla waxa uu ku yidhi wastafziz man istaطacta minhum bisawtik cidda aad kartee ilmo nebi aadam ka mid ah waxaad ku didsataa ood ku kicisaa ood ku dagaalgelisaa codkaaga ibliisow waajlib calayhim bikaylika warajlik waxaanad ku weerartaa ciidankaaga fardoolayda iyo kuwa lugulayda aba labadaba ku weerar kuwooda fardaha fuushan iyo kuwooda lugtee lugaynaya kuwa gaadiidka iyo kuwa afantarigaba ciidankaaga waxba ha la hadhina ku weerar washaarikum fi lamwaali waalawlaad waxaanad la wadaagtaa awlaadda iyo amwaasha wacidhum una yabo oo ballanqaad u samee ilaahay waxau yihi wamaa yaciduhum الshayطaanu ilaa guruura shaydaanse uma yaboohayo oo waxa weeyaan uma ballan qaadaya ilaa kada iyo yani waxay ku kadsoomayaan oy ku dagmayaan mooye wax kale haadihi اlaaya waxay aimada tafsiirka ugu waaweyn sida mujaahid oo kale calayhi raxmat ullah imaamkii taabiciinta tafsiirka ugu aqoonta badnaa ee aimadu ay yidhaahdeen ida jaaءaka tafsiiru can mujaahidin fashdud bihi yadayk tafsiir hadduu mujaahid kaaga yimaado ku dheg oo ku tuntuunso waa tafsiir adag oo culus ah waxa uu ku fasiray lahwa alghinaa in waxa weeyaan codkaa shaydaan iyo ibliis dadka uu ku duufsanayo ee la yidhi wastafziz man istaطacta minhum bisawtik sawdka ibliis iyo codka shaydaanku inuu yahay heesaha waxaa kaloo alla uu yihi subxaanah wاladiina laa yashhaduuna الzuur waidaa maruu biاllagwi maruu kiraama iyadoo la tilmaamayo sifaatu cibaadi الraxmaan
addoommada ilaahay tilmaamaha wanaagsan ee ay ku toosan yihiin ayaa ilaahay waxa u ihi subxaanah waaladiina laa yashhaduuna azuur waxa weeyaan addoommada alleh kuwa aan beenta iyo baatilka aan xaadirinen goobjoogga ka ahayn waidaa maruu billagwi maruu kiraamaa marka ay laqwiga iyo waxa aan faa'iidada lahayn soo maraanna waxay marayaan iyagoo sharfan oo wanaagsan oo naftooda kala han weyn baatilkaa inay ku baydhaan walaalayaal a'immada tafsiirka in badan oo ka mid ihi waxay ku fasireen azuur beenta iyo baatilku waa caam laakiin waxay tilmaameen beentaa iyo baatilka inay soo hoosgelayso alghinaa heesuhu waxaa kaloo alla u yidhi subxaanah afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduun fasjuduu lilahi wacbuduu ilaahay waxaa u ihi jala jalaaluh afa min hada alxadiidi tacjabuun war ma warkan ayaad la yaaban tihiin waa qur'aanka ah watadxakuuna walaa tabkuun ma aayaruun baad ku qoslaysaan oo aydaan ooyeyn waajibka iyo dawgu wuxuu ah inaad ku oydaan ah wa antum saamiduun idinkoo moogan oo ghaafiliin ah fasjuduu lilaahi wacbuduu allah waxa u ihi ilaahay u sujuuda oo caabuda rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa a'immada tafsiirka qayb ka midi ay ku fasireen wa antum saamiduun idinkoo heesaya oo dad fara badan waxa qur'aanka ka mashquuliye ka jeediyaa waa heesaha oo waa lahwi iyo laqwi lagu mashquulayo waayo heesaha waxaa loogu tilmaamay lahwa alxadiid liannahu yulhi can dikri اllahi wa taacatih waayo dadka waxa uu ka duwayaa oo ka leexinayaa ilaahay dikrigiisa iyo taacadiisa walaalayaal haadihi alaayaat waxay tilmaamayaan heesaha iyo muusikada maanta meelna aynu ka mari laanahay shareecada islaamka xaaraan inay ku yihiin oo aanay xalaal ahayn walaalayaal waxaynu soo tilmaannay aayaad dhowr ah oo tilmaamaya xaaraannimada heesaha iyo muusikada iyo waxa loo tumayo waxaynu soo qaadanaynaa axaadiis dhowr ah oo iyaguna macnaha tilmaamaya oo caddaynaya bukhaari saxiixiisa waxa uu ku soo saaray xadiidka abi malikin ilashcari inuu nebi moxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariir waalkhamra waalmacaazif nebi moxamed waxa uu yihi calayhi afdal salaati wassalaam walla ummadayda waxaa ka mid noqon doona oo soo bixi doona dad xalaashan doona alxira waalxariir zinada iyo xariirta iyo khamriga iyo heesaha iyo waxyaabaha loo tumo almacaazif waxay culimmadu ku fasireen jamiicu aalaati lahwi waatarab heesaha iyo waxyaabaha loo tumo oo dhan hada alxadiid waxa uu nebigu ku tilmaamay inay soo bixi doonaan dad wixii xaaraanta ahaa xalaashan doona zinadii baa ka mid ah oon cidii isku haysan xaaraannimadeeda khamradii baa ka mid ah xariirtii baa ka mid ah oo ragga ummadda nebi moxamed laga xarimay waxaa ka mid ah almacaazif oo heesihii iyo waxyaabihii loo tumayey ah walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kamaa fii saxiixi iljaamici min xadiidi anas nebi moxamed wuxuu yidhi calayhi afdal salaati wassalaam sawtaani malcuunaani fi اdunya wاlaakhira mizmaarun cinda nicmah warannatun cinda musiibah laba cod if iyo aakhiraba waa lagu nacdalay waxa weeyaan heeso iyo muusikada la tumo wakhtiga barwaaqada iyo nimcada lagu jiro iyo baroorta marka ay balaayadu dhacdo labadaa codba nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay laba cod oo la nacdalay walaalayaal waxaa kaloo saxiixu sunani abi daawuud ku sugan fii saxiixi sunani abi daawuud can naafic qaala samica ibnu cumar sawta mizmaar fawadaca usbucayhi calaa udunayh faqaala yaa naafic hal tasmacu shayئa qaala laa
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع أصبعيه عن أذنيه وقال يا نافع كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. سنن أبي داود وحكسوا عن نافع إنه يري عبد الله بن عمر ayaa wuxuu maqlay cod waxa weeyaan hees iyo muusigii loo tumayay qayladaas uu maqlay codka heesta fawada'a usbu'ayhi ala udunayhi wa na'a 'an at-tariiq labadii safarood intuu dhagaha geliyay uu faraha dhagaha gashaday si aanu u maqal ayuu wadadii iyo dariiqiina uga leexday markaasa waxa uu naafico waxwaad ma maqlaysaa markaasuu yiri maya markay ka fogaadeen heestii codkeedii ka hadhee ka go'ay ayaa intuu farihii dhagaha ka saaray waxa ibnu cumar uu yidhi nebi moxamed anoo la socda sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu maqlay waxaanan maqlay oo kale markaasuu sameeyey sidan aan sameeyey oo kale waxa macnaheedu uu yahay dee heestu haddaanay xaaraan ahayn nebi moxamed dhagaha faraha kama geliyeen cabdillaahi ibnu cumarna kuma raaceen laakiin arrintaasi waxay daliil u tahay in dhagaysiga heesaha iyo muusikadu uu xaaraan yahay oo aanu xalaal ahayn walaalayaal a'immada madaahibta afarta ana sidaynu soo sheegnay waa isku raacsan yihiin xaaraannimada heesaha maalig oo kale waxaa laga hayaa inuu yidhi innamaa yafcaluhu alfusaaqu cindana waxaan waxa sameeya uun kuwa fusaaqdee daacada ka baxay ee ahlu khayrku shaqo kuma leh أحمد بن حنبل وحول الغناء ينبت النفاق لا يعجبني هاسه وحي صوبق ليان أما أي بيران نفاقة وحن شعلها ينرى لك أهين معها الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع وحاسه أي النفاق يعدر كيس أبيران سيدا بيه أي باتك أبيران يزرعه ولا ليال waxaynu aqwaasha culimada iyo hadalka ilaahay aynu soo qaadanay iyo axaadiisa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo mid kaliya ka mid ah ruuxa muuminka uu ku filan yahay inuu ku waantoobo intaasoo dhami waxay tusayaan waxa maanta aynu maqlayno waxa lagu ololeynayo waxa meel walba dhawaaqiisu ku soo dhacayo shariicadeena inuu xaaraan ku yahay waxa markaa waajib nagu ah oo xukuumadda iyo dadka talada haya waajib ku ah waxyaabaha ummadda inay ka xakameeyaan oo khayrkiyo wanaagga lagu bedesho waayo sharkiyo khayrku meel ma wada galaan markii qur'aanka iyo sunnada laga tegay ayaa heesta iyo waxa weeyaan kamanku halkoodii ay galeen laakiin kuwa inta meesha laga saaro in qur'aanka iyo sunnada iyo muhaadaraadka iyo wacdiga iyo waxa ummadda anfacaya la maqashiyo walaalayaal waxaynu maalmo dhaweyd maqlanay culimada burco khayr allaha siiye inay xataa aroosyada heesihii iyo balaayadii loo tumi jiray inay ka joojiyeen oo hudheeladoo dhan ay mareen maamulka gobolkuna uu ku waafaqay taasay hargeysina u baahan tahay oo culimadeedu inay ku kacaan oo maamulku ay ku ayidaan ay ku gacan siiyaan in heesaha iyo kamanka iyo waxyaabaha ummadda laga xakameeyo waayo waxa xaqiiqo ah waxyaabahaasi ummaddeena way baabi'inayaan dhalinyarteena macaasida iyo xumaantay u horseedayaan wax khayr iyo wanaagna ka dheefi mayno midho wanaagsan ka goosan mayno walaalayaal waxa waayilka iyo dadka waayeelka ee xilku saaran yahay iyagana saaran inay ubadkooga iyo guryahooda iyo meheradahooga ka ilaaliyaan oo xaaraanta ay ka xafidaan oo ay ku doorsadaan qur'aanka qalbigooda qoynaya oo ay ku bedeshaan axaadiisa nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ay ku bedeshaan muhaadaraadka iyo wacdiga iyo waxa quluubtooda nooleynaya rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qina adhaban nar allahumma ansur al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ahlik al-kafarata wal mulhidin a'daaka a'da dinaka ya rabbal alamin اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين
ilaahay oo ammaanka noo adkee ilaahay oo iimaanka noo ziyaadi ilaahay oo wax alla wixii khalkhal iyo dhibaato naga gelinaya naga dhowro naga ilaali ilaahay oo kuwa iyaga hoggaanka noo hayana wanaagga iyo khayrka waafaji kuwa hoggaanka ku hamiyana kooda ugu khayrka badan leh allah yow gacanta u geli ilaahay oo khilaaf iyo khalkhal iyo fitan iyo dagaal iyo dhibaato allah yow naga ilaali horaba waad nooga ilaalisay dibna allah yow nooga ilaali nicmadaadna siisay allah yow noo ziyaadi oo noo sug wixii naga zuulinaya allah yow naga dhowro naga ilaali وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.